munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay madasha isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana loogu talagalay in tacsi iyo baroordiiq loogu sameeyo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii waaweynaa ee 4tii bishan ka dhacay inta u dhaxaysa kilomitir 4 iyo kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho sidoo kale munaasabadan ayaa dhinaca kale waxaa hambalyo iyo mahadcelin loogu dirayay xildhibaanada dawladda ku meel gaarka ah oo iyagu laalay heshiisyadii dhinaca badda Soomaaliya ku aadanaa ee la galay sanadihii u dambeeyay waxaa munaasabada ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay Ahlus Sunna wal Jamaa suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada rayidka ee ku sugan Nairobi ugu horeyn waa tan Liila Xasan oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhalinyaradan soo qaban qaabisay munaasabadan oo sharaxaysa sababihii ku kalifay inay soo qaban qaabiyaan barnaamij noocan ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madashatan waxaan ugu madal darnay maxay ahayd dhalinyaradii Soomaaliyeed oo ahaa wixii Soomaaliyeed oo si ula kaca loo burburiyay ayna tahay mid xasuuq oo aan fiirsan karin waxa soo diyaariyay Soomaali Youth Forum nagad wuxuu kale oo aan u mahadcelinayaa xildhibaanada dawladda salaadiinta sidoo kale xubnaha ka socda Sunna wal Jamaa adduunku waa ubax iyo guri wadanku waa hooyada waxaad arki kartaan hooyo badan oo xilcaysa daha damiirkeena wuu nasiin waayay inaan ka aamusno sidoo kale waxaan arkaynaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ubaxii wadanka ahaa gacankii wadanka ahaa oo meeshaas ka baaba'ay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xildhibaanadii ka soo qayb galay barnaamijkan baroordiiqda ahaa oo goobta ka hadlay ayaa dhammaantood si isku mid ah tacsi ugu diray dhammaan dadkii rayidka ahaa ee waxyeelada ka soo gaartay dhacdadii 4tii bishan waxayna ku baaqeen in si wada jir ah shacab iyo dawladba looga hortago falalka noocan oo kale ah ilaahay uu naxariisto waxa geeriyooday xafladan sharafta badan intaan kala soo timid ayagoo ka xun oo ka tiiraayaysa بعدك فوش حمد كبعض من هذا الوقت ما هو كمان عليه هنا بيرداس وطن الإسلام مركز وابل وحن يا لو بهنيا أنا بسوكاشن قوة دمبور يدير دونا أما كعنور يدير دونا أما بيتهدقال سوق اللي يدير دونا أنا بتبادل هاي القوة أي صوت دجال قليها قوة أي استحية لي قوة أي صوت دروغينا يا والمهنية وعروض تجدي وذاتك أمبلمي وذاتك نلاشي وذاتك ورثوري وحا عين كاسة حوية ولا ريان إن لك هرتلو ولا هرتلو ولا هرتلو وحنا الديار قلنا هاي وأنا الديار قلنا هدي أن مثلا هذا قف الدولة كل يلقى واسكول دار سنة وحاس إنان كهرتلو وحاس ذاتك اللي وعي قليو oo laga badbaadiyo oo la hadlo wixii hadal diidan in dadka laga qabto waa isku dhaarsanaa inaan ku dhiman diyaarana ugu horeyn codka baarlamaanka Soomaaliyeed codka madasha siyaasiyiinta da'da Soomaaliyeed codka dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo ku hadlayo kana wakiil ah waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in aan si aad iyo aad u cambaaraynayno dhacdadii foosh xumeed ee ay geysteen kooxda manaxayaasha ah ee ku qaraabta magaca diinta ayagoo wax shaqo aan ku lahayn diinta islaamka ee qiimaha iyo qaayaha badan ee ku dhisan nabadda iyo muxuu ahay cadaaladda iyo iskaraameynta dadka dhexdooda ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin madashii soo qaban qaabisay xafladan وانا لو باهنا marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii ku geeriyooday shacabkii muslimka ahaa ee Soomaaliyeed oo bariga ahaa waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadii Allah ka waraabiyo Farax Maxamed Ali Farax Blue oo munaasabada kaga hadlay magaca saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo barakacay magaalada Muqdisho ee ku nool wadankan Kenya ayaa qiray in falkaasi uu yahay mid ka mid ah musiibooyinka ku habsaday ummadda Soomaaliyeed waxa uu dhinaca kale ammaan iyo bogaadin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maalmo ka hor dafiray heshiis kasta oo dhinaca badda Soomaaliya la xiriira
iyo dowladda Turkiga oo mucaawino iyo gargaar u fidisay dadka Soomaaliyeed. waxaan runtii anoo ku hadlay magaca saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Kenya ku nool aan marka hore ka tacsiyeynaa dadkii ku baaba'ay falkii arxan darrada ahaa oo kooxda khawaarijta al-shabaab ay ku laayeen ilaa 100 qof oo walaalahan inta ku dhaawacantana waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo. marka labaad waxaan jeclaan lahaa inaan mahadcelin weyn siiyo ama aan u mahadceliyo xildhibaanada baarlamaanka oo shalay diiday in badel Soomaaliya la iibsado. waxaan jeclaan lahaa markaa intaas kadib waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dowladda Turkiga oo gacan weyn Soomaaliya siisay. ugu dambeyn waxaa goobta hadallo qiiro leh iyo gabayo baraarujin ah ka soo jeediyay afhayeenka Ahlus Sunna ee qaaradda Yurub Maxamed Xuseen Awliyo oo isagu isku tilmaamay inuu yahay wadani Soomaaliyeed. aniga siyaasi ma ihi sheekhna ma ihi haddii meel laygu qori karo waxa laygu qori karaa waxaan ahay wadani Soomaaliyeed ayaa laygu qori karaa. haddaan maanta dowladda wax ka sheegno oo aan criticize garayno nood inaan la dirirayno iyagay berri waxay u tahay wax u fiican wax tusaalay u tahay. waxaan la rabaa anigu siyaasi ma ayaa diib joojiyana waxaan idiin sheegayaa waray timir laf baa ku jirta aan sidaba wax isku sheegno qaraxyadii la tirinayay intuba waxay ku soo aadeen marxalad siyaasi ah. Umar Xaashi wuxuu watay jamhadii Iiraan la yiraahdo Ahlus Sunna wal Jamaa wadanka hadday qabsatana raggii markaa haysta waa wiiqmi lahaayeen. cadow iyo raggiisu markay dhinteen inuu iscaasiluu rabay arrin siyaasi ah ku jirtay waa laga takhalusay wixii shaanow taasay ahayd. hadda farmaajo markii la cayninayo wasiirka arrimaha gudaha la dilay Amisom way degtay way fariisatay waxa la yiraahdo massive operation hoob aan qaadno generaaladoodii baa lagu dilay. maanta maxaa taagnaa badda laga wada hadlahay dowladuna daa weekend way og yihiin waxa u haray hal sano oo meeyaga ugu talagalay 6 bilood inta isqabsanayaan inay dhaaftaan ka bacdina criticize-kooda la galo. anigu waxaan idiin sheegayaa walaalayaal waxaan isku haynaa cali dheeriya ilmaha maaha waa mabda. guud ahaan dadkii iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan oo wajiyadooda ka muuqatay murugada iyo urkutaalada ay ku reebtay argagixii ka dhacay Muqdisho ayaa si wada jir ah tacsi ugu diray dhammaan dadkii waxyeello ay ka soo gaartay falkii dhacay 4 bishan. Ibrahim Gedo Awale Bibo, Royal TV, Nairobi.